Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa ku hanjabtay inay tallaabo ka qaadi doonto shakhsiyaad ay ku eedeysay in ay wadaan falal iddi ku ah hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya. War-saxaafadeedkani oo ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Federaalk Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dadkaasi si adag loola xisaabtami doono. War-saxaafadeedka laguma caddayn magacyada shakhsiyaadka Soomaaliyeed ee ka soo horjeeda qarannimada Soomaaliya, waxaana war-saxaafadeedka ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Federaalk Soomaaliya u dhignaa sidan: Dowladda Federaalk Soomaaliya waxay shacabka Soomaaliyeed ku wargelinaysaa inay u taagan tahay oo ay gudanayso waajibaadkeeda dastuuriga ah oo ay ugu horreyso ilaalinta qadiyadda Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya. Baryahan dambe waxaa soo ifbaxaya mas-uuliyiin haya xilal ama kuwo soo hayn jiray, ha ahaadaan reer federaal ama reer dowlad goboleed, iyo shakhsiyaad Soomaaliyeed oo ku shaqeeya ficilo dhaawac ku ah qadiyadda lama taabtaanka ah ee qaranka Soomaaliya. Dowladda Federaalk Soomaaliya waxay qaadaysaa tallaabooyin waafaqsan dastuuriga iyo shuruucda dalka Soomaaliya u yaala, kaasoo lagula xisaabtami doono shakhsiyaadka iyo mas-uuliyiinta ay ku caddaato inay ka shaqeeyaan garabsiinta cid walba oo damac kaga jiro xuduud dhuleedka badda Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya. Dowladda Federaalk Soomaaliya waxay shacabka Soomaaliyeed mar kale u xaqiijinaysaa inay u taagan tahay ilaalinta midnimada, madax-bannaanida Soomaaliya iyo dhaxalka jiilasha dambe, waxaana caddaynaysaa inayna marnaba ogolaanaynin in falal kasta oo dhaawacaya qaranka Soomaaliya ayna u adkaysanaynin, isla markaasina gacan bira ku qaban doonto. Waa Naasir Cabdilqaadir Cabdiwahaab, Naasir Talasame, wararka telefishinka Badda Cas, magaalada Hargeysa.